madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wafduusa hogaamiyay oo maalmahan howlo shaqan ka maqnay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo geekreetanka nagadi xarunta ku meel deerkan ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo garoonka diyaarado Dr. Shati wafdiga mehe ka dhawaayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed lamada gol dowlad goboleedka Koonfur Galbeed saraakiil ciidamada qaybo iyo shirduban siyaasiyiin iyo sidaas oo kale bulshada ku shalkooti tumanka xafadad magaalada Baydhabo iyo ka koobanta hadawaayo kureed wafdiga madaxweynaha hogaamiyaha Yalhan Galbi xarunta aqalka madaxtooyada ku meel deerkan ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo milaasona koreen warbaahinta la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Dr. Ali Saciid Fiqi meydusku warbixi xaaladoogi muddada madaxweynaha maqnaay ku dhig deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane madaxweyne ku soo dhawaaw soo noqosho wanaagsan muddada maqneed maaragtay deegaanka ee Koonfur Galbeed ama magaalada maaragtay gaar ahaan magaalada Baydhabo nabad iyo mataqaana wada shaqeyn culus ayaa maaragtay maamulada ka jira ay wadeen annagana shirar joogta ayaan maaragtay meesha aan maalin kasta la galayn howlihii oo maaragtay dhacdooyinkii dhacay waxyaabihii markaa loo baahnaa kulli si wanaagsan ayaa loo wajahay ciidanka maaragtay nabad sugidda iyo maaragtay booliiska iyo maxkamadihii iyo wixii oo dhan maaragtay howlihii laga rabay ayay qabteen marka runtii deegaanka aad buu u wanaagsanaa horumar fiican ayaa mataqaana uu ka socday tan ku saabsan cudurkaana maaragtay oo COVID-19 wararkan helayn wuxuu yahay dhibaatada uu geysanayo aad ay u yar tahay inkasta uu dhulka maaragtay cudurka wadanka uu maaragtay magaalada uu ka jiro laakiin waxa ilaahay nasiib u yeelanay in maaragtay cudurkii dhibaatadii geeridii badneed oo laga baqaay in maaragtay magaalooyinka sida Baydhabo kala u geysto aad buu maaragtay ugu yar yahay taasna ma hadda ilaaha iska leh waxaan ku leeyahay madaxweyne soo dhawaaw madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo warbaahinta la hadlay maysan mahadnagay dhammaan dadkii ku qayb galay hadhawaayowgii maynuusan sheegay intii safarkiisu ka maqnaay magaalada Muqdisho sahay safar shaqo sidaas oo kaleedna guulaha ku deeriyaduna ciidamada booliiska gaarka Koonfur Galbeed ee lan tababaray gobolka Shabeellada Hoose intii ku howlgalan laha ka wareejiyay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed marka ugu horeyso awalan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo mas'uuliyiintii iyo shacabkii iyo maamulka gobolka iyo degmada soo dhaweyntii qiimaha badnayd oo diiranaydna soo dhaweeyay aad iyo aad ugu mahadsantihiin saa ogtihiin safar shaqo oo waxaan aadnay 2 isbuuc ah aniga iyo wafdi kale oo ila jiray oo aan u tagnay caasimadda Soomaaliya oo arrimo Koonfur Galbeed shaqooyinkeeda u qaas ah qaasatan howlihii security-ga iyo arrimaha amniga ee nooga socday iyo howlgalladii Shabeellada Hoose ka socday sidii loo xoojin lahaa loona dardar gelin lahaa arrimahaas iyo arrimo kale oo shaqo ayaan u tagnay arrimihii shaqoon u tagnay runtii intii kulli waxay noogu soo dhamaadeen si guul ah oo horumar leh oo horusocodna leh iyo noogu soo dhamaadeen waxa ugu muhiimsanaa waxay ahayd in ciidan muddo tiro badan tababar u socday oo si fiican loo soo tababaray dhamaystirkiisii iyo qalabayntiisii iyo wareejintiisii maamulka lagu soo wareejinayay aan ku guuleysanay nagula soo wareejiyay howlgalkiina ay bilaabayaan insha Allah si toosa maalinkii 1 bisha June lagu soo wareejiyay in uu howlgali doonaan sidaas oo kale madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen intii magaalada Muqdisho ka suganay may kulamo shalgadiisan u soo weeldaday madaxdanka sareyta qaranka oo kula hadalay dardargeliyo xaqiijinta amniga gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sidaas oo kale ku saabsan amniga iyo national security-ga oo MCR-ka uu koob ka yahay furitaankii jidka Baydhabo iyo Xamar yaa qayb ka ahayd howlaha aan u tagnay meesha waxyaalaha ilaahay nagu guuleeyay oo ku guuleysanay bay ka mid ahayd in la dardar geliyo ciidamada SNA iyo ciidankii kale oo joogay oo xaquuq la'aanta ahaana in xaquuqdoodii loo helo
dowladda federaalkana aan miisaaniyadda lagu daro miisaaniyadda hadda la ansixinayana ay qayb ka noqdaan 2 maalin kadibna ay imaan doonaan dadka registrationka iyo numberkii database-ka u suubinayo oo la dhammaystiri doono reformkii iyo dhismihii ciidamada koonfur galbeed oo dhan 3 gobolba ciidankii joogay reform lagu suubin doono dhammaystir iyo dib u habayn na loo samayn doono nin walbana xuquuqdiisa oo ciidana oo ciidamada koonfur galbeed noocyadooda kala duwan ay xuquuqdooda heli doonaan daraawiishta SNA-da booliiska nabad sugidda intaba registration loo suubin doono insha Allah xuquuqdoodana ay ku heli doonaan aan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waana soo dhamaatay waana la process gareeyay waxyaalahan u tagno ku guuleysanay way ka mid tahay arrimihii ugu badnaa oo u tagnay guulahaas inoogu soo dhamaadeen wixii kale guud oo siyaasad iyo hawlihii socday iyo waxay noqon doontaa inaan haddii Ilaahay yiraahdo mar kale aan ka hadalno aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa sida uu sheegay gudoomiyaha cudurkan COVID-19 runtii dadka sida loo dadaalay waa ku mahadsan yihiin taqaatiirta iyo guddigii wasiirada ahaa oo loo saaray iyo culamaa diinkii in dadaalkii sidiisa loo wado culamaa diinka meel kasta ay joogaan culimada Soomaaliyeed ay dadka wacyi geliyaan ayagoo Ilaahay tawakkalayo quraan badan ay akhriyaan waxa laalay wixii ay qaban karaan oo kalena ay qabtaan safarka madaxweyne Abdicasiis Laftagareen uu ka maqnay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ma gaaday muddo ku badan 10 maalmood muhiimadda safarka ma haytay dardargeliyowka shaqeeyowka shacabka ku nool gobolada Bay Bakool iyo Shabeellada Hoose Faysal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha dawladda Koonfur Galbeed aqalka madaxtooyada magaalada Baydhabo